إلهي بقى مهدله مدنيال iyo mudane gudoomiye marka koowaad salaan marka labaad abaaruhu waa farbaaniya baahida koowaad ee dalkeena haysata marka koowaad waa biyo la'aan baahida labaad waa biyo la'aan baahida saddexaad waa biyo la'aan markastoo biyo la'aan ama roob la'aan dhacdo waxa adkaata nolosha waxaana yaraada wax soo saarka dhulka taasoo ku keenta dadka xoolaha iyo xayawaanka kale duruufo adag iyo xaalado qallafsan oo macaluul haraad iyo gaajo ah abaaruhu waxay qaataan muddo bila ah sanada ah taasi oo burbur laxaad ku keenta shabakadaha isku xidhan ee nolosha khasaaraha abaaruhu waxay keenaan dhimasho laxaad leh oo ku timaada dadka iyo dunyada markaa mudanayaal maanta isma weydiinayno siday abaartu u dhacday oo waa arrin ilaahay u qadaray balse waxaan isweydiinaynaa sidaynu abaarta wax uga qaban lahayn waxaa kaloo isweydiinaynaa abaaruhu way soo noqnoqdaan soo noqnoqoshada maxaynu ka baranaa war siday dhibcaha roobka iskugu eegyihiin ama shalay hadaan ama sanadkii hore hadaan ayay dhacdooyinka taagan iyo kuwa tagayna iskugu eegyihiin matalan abaar markuu soo martay oo isoo gurmaday isoo caawiyay isoo gaaray aad kaga jawaabto haday mar labaad kugu soo noqoto adigoon sidii hore si ka duwan uga diyaar galoobin oo nu wajahayna waxa la mid ah dab markuu gubay oo mar labaad ku gubanayso sida darteed mudanayaal ummadu qorshay inooga baahan tahay siyaasad qaran bay inooga baahan tahay sida ogtihiin qabashada biyaha roobka iyo ka faa'iideysiga qorraxda iyo dabayshu waxay ka mid yihiin waxyaabaha bini'aadamku ku horumaro maxay isticmaalaan inagu aan ku mashquulsanahay waxaan jecelahay saaka inaan si dhab ah hoosta uga xariiqo abaartu maanta ma iman saacadan inuu joogno abaartu ma iman bilii la soo dhaafay abaartu way jirtay wasiirka wasaaradda maaliyadda bartaas uu soo istaagay waxaan weydiinay su'aalo 7 kor u dhaafay 2 toddobaad baynu haysanay miisaaniyadda maalinta abaartu way jirtay wixii golahani jaray waa tii material iyo waxyaabo aad ku darteen ilmaada real gacanta dheer iyo dhaliisha kala daayay ma maanta ayay abaartu soo baxay صوتي قلوين كي كامسة الله يا بنيدين مين نقدر نافري وضد كتب على اسم بيلوجو صاروا مين حالها ضد كنا هايستا أبارها صون نقنضي هو سويجنا وروح عليه مدنيا باهيها أساسية يبيها عليه وحبرشة عليه عافمات كلام يجري وقف إن جمد ويسكي وقبن كلا عدة وقبت أود دولة صدح الدلالي دولنimada ku kooban tahayna inagu qaybaynu ka mid baynuna mas'uuliyadda in saareen waa inaynu ummadan ceelaliyo iyo saxan u noqono waxaan ku soo gabagabeynayaa dhulkana hadoo yiri marka damasta goyseen galoolkii dhamayseen dhilateen maraagi geed meydin dhaafina dhirtooda xasuuqdeen oo qubada naxligu dhalay abaar baad ka dhaxasho gaf ka dhacay dushayda cirku dhibic u daayay dad ummad dhowrtaan